السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا جوين channel قادرة إيه channel كني بالخير TV كسر لوادا channel كنن أنت كتب واحد نقول دونا 10 كان بس أنتي نانجلين هذا channel كيكو عسمتي بليز subscribe like share and comment. أنت كبعد واحد نقول إن 10 كنن أو 10 كلمة أنتوا حكوا سابسين ما دام 10 كانوا شري سوق عدنا وهالك ترى ملازم ما تروح نقاطن دونا يسكي أو لابكي ويكستا واحد سوينا maalin kasta 10 kaynu sameeyno maalinta kale ku xigto waxaynu qaadanaa labkii isagoo practical theory-gana maalinta ka horeysa qaadanaa marka maanta waxaynu qaadanaynaa labkeeni waa gacantaynu ka qabanaa wax walba waa itisoo itaabsi purpose-ka hadaba 10 kana maanta waxa uu noqonayaa labkan waxa weeye in aynu laba computer isku xidhno labada computer hore waxaynu isku soo xidhnay laba computer oo isku maxaan ku dhahdaayay filan ah وهل فيلان أو إسكو ميلا أو هل إسكوش لو استعماله أي درسيدنا أي إسكو سبندين سبند كدال بينو كبرندونا سبند وفي سوماليا دام كسمعني هو إسكو سي قيب أما إسكو سي به وإسكو سبند أنت هتان كيو كدو مركا وحينو كو قادنا إن اللاب كان معنتا سيداني دي شيء وشيدي دي سو حوية لبدا كمبيوتر أو كلا سبند أو لبدا أي بي أدريس أي كلا دوين لبا فيلان أي كليين فيلان معني سو حوي أوكي let's say واحد لهذا شركة عاد لهذا هاي كسوقات واحد لهذا قيب سيريس كا واحد يبسه قيب تي حسابات كا لبدا قيبود من نوع قيب تي accounting كا من نوع كوي سيريس department صالحان وحينو هذا كوا بلا كرننا إنه لبدا سو كلا حيسانو أما أدوني سينات سمايسو لبا كمبيوتر لبا كلا أي بي أدريس لبدا كمبيوتر يا لبدا قيبودين ودا شقيان إلا صعدا introduction كين waxa ku saabsan marka in waxaynu set up gareynayna labkeenan to set up and configure VLANs and test various configuration to test the connection between two computers so way fahanteen intaas waa English Soomaalina waa aan idinku sheegay okay equipment-iga inuu baahanahay waxa weeye equipment-iga waa la socotaan arrowga hada fiirinaysaan labada computer baan u baahanay equipment waxa weeye wax loo baahan yahay ama resource-ka doonaya lagu isticmaalo ku shaqeyno waa laba computer two straight cable iyo Cisco switch oo ah 2960 or 3560 gaasina ku shaqeyn doona marka kana waan ku shaqeyn karnaa choice-ka adiga iskale kan waxa loo isticmaalaa multi switch waa markay switch fara badan aad ku xidhiidhayso kan laakiin labadooda isticmaalka kan laakiin multi kana si ah kan single buu noqonaya inta badan okay markaas waxaan tagi doonaa labkii marka aynu qori doonaa address-kan halka ku aragtaan IP address-kaas halka ku aragtaan kaas IP address-ka 192 ayaynu computer gelin doonaa 192.168.10.1 subnet maskigiisu wuxuu noqonaa 255.255.255.0 ka kalena wuxuu noqon doonaa 192.168.20.1 waa isku mid xagga subnet maskiga kana waa 255.255.0 default gateway-gana gelinayna midna waa 192.168.10.1 ka kalena waa 192.168.2.1 markaas waxaynu gudbi doonaa labkan sameynay structure-kiisii waa kan structure-ka leenaga doonaya waa ka switch-kaynu ku xiri doono labada computer waa kuwan switch waa kan labadii computer midna waa kan midna waa ka qaabkaasina isku xiri doona labkeenu u ahaan doona marka kan structure kuma doonayna inaan ku tuso sheet-keenan qaybtaasaynu galeynaa IP address-kan isticmaalayna waa ka IP address-ka koobaad aynu gelino computer koobaad ka labaadna kanaynu ku shaqeynaa interface-ka ama halka lagaga xiro imika markaad doonaysid inaad computer ka wada haysataa gurigaaga waxa laga yaabaa inuu computer yaalo intiina badanood hadda way la socotaa ma filaya ama xafiiskaaga interface-ka waa portiga waa meesha laga geliyo computer-ka lagaga xidho ka kale marka interface-ku waa qaybta yar ee la geliyo horeyna kusoo sharxay labka marka interface-ku waa ka si fiican imkaan idin tusi doonaa PC waxaan ka wadaa PC waa personal computer waa computer 1 iyo personal computer 2 waa labada PC labada interface-na wuxuu noqon doonaa midna 01 midna 02 labada IP address-na waa kuwan subnet maskiguna waa kuwa waanigi hore ku soo sharxay labada maxaa default gateway-gana maalin gaar ah ku qaadan doona isagana laakiin waa arki doontaa insha Allah taala doonayna okay qaybtana IP address kuma intuu tusayay
qaybta ku xigtaynu gudbaynaa. qaybta ku xigtaa waxa weeye are these two computers on the same network? maya, isku same network maaha. marna waa isku same network weeyiin, laakiinse explain how haddii lagu dhahdo waxa weeye for each two computers connected to the data port. macnihii marka hore waa isku network laakiin waa kala fiilan, waa kala qaybood, laakiin same network weeye. waa iyadoo aad shirkadaadii laba computer ay kala leeyihiin, marka hore waa isku network laakiin haddana waa laba kala department. maxaan ku dhahdaa sent kusoo raamina waa 01 fs 01 waa 01 waxaan ugu bixinay meesha laga geliyo 01 ka dhiganay ka kalena 02. which switch did you selected? hal switch uma haysanaa markaa. su'aal baa la weydiiyey which switch did you select? keebaa doorad hal switch uma haysanaa. identify the switch by its numberkiisana waxba hadda kuma noqonayno, ana halkan aan ka soo doonaa because number ma sameynayno. hal switch maadaama aan haysano. qaybtan inuu gudbinaa switch configurationka markasto ila socda oo igu xidhnaada markasta oo aynu aragnay switch configuration inaan sameyno. configuration waxa weeye luqadda ku shaqeeya switchku. soo gurigaaga markaad gelisay albaabka ma furatid, oo haddana markaad kadin kasta u istaagto dee kabaa lama gelisay ilaa dad muslimiina weynay. maxaan ku dhahdaa kabaha ma bixinaysa. markaad kabaha iska bixiso sharabaadaad iska bixinaysa, kabacdi haddana waad cagmeynaysaa, kabacdi dabadana waxa weeye adigoo nadiifa ayaad gurigii gelaysaa. saasay dhaqankeenu hadeedna kursi baad ku fadhiisanaysaa ama wixii hawle aad qabsanaysaa. marka waxa weeye wax walba structure bay leeyihin. in order to use the Cisco switch baa lagu leeyahay. haddaba haddaad doonayso Cisco switch inaad isticmaasho, you have to type this command that uses in a switches. haddaad doonayso inaad switchka configuration ku samayso ama aad ka shaqayso, waa in aad commandnadan amran soo socota aad ku qortaa. to access console configuration mode, say inuu isticmaalna as explained during the lab, sidaan labka ku soo sharxnay, you have now entered the user mode with the prompt. haddaad doonayso markaa inaad gasho to enter the extra mode-ka, waa privilege mode ayuu leeyahay. that brings you to the privilege mode. waa inaad qortaa ereyga marka ugu horeysa saa u gasho bahalka. su'aal buu ku weydiinayaa. su'aashaas inta badan markaad laabka sameynaysid switchka markaad saa u gasho, su'aal buu ku weydiinayaa. su'aashuu ku weydiiyo inta badan noo badan dhonsa anaana iyo tustoona iminku weydiin doonaa. markaad su'aasha marka uu ku weydiiyo aad noo ku qorto, kabacdi dabadna wuxuu ku leeyahay dhaqaaji markaa ereyga dhaqaajinaya waxa weeye you have to type enable waad ku qortaa. enable kelmadaas waa inaad ku qortaa. kabacdi markaad ku qorto waxaad ogaanaysaa inuu wixii ku shaqaynayay iyo inuu maartay si uu yahay bahalku si aad u jeegarayso. show run baad ku qoraysaa or show filan brief. waxaynu ku qoraynaa markaan doonay inuu filaano gudaha bahalka kaga dhex samaysan yihiin. fiilaanada doonayna inay create garino marmarka qaar hadduu qof hore kusii shaqaystay computerka si aad u ogaatiyeen kale in hore loogu shaqaystay, marka oo inta fiilaana la create gariyay waxaa ku dhex jira aad ogaato, waxaad ku qoraysaa show run oo aad ku ogaanayso wixii aad ku create garisay, ama waxaad ku qoraysaa show filan brief oo ah iyadana aad si aad u aragto fiilaanada la create gariyay systemka ku jira. inta haddii halkaa kaga gudubno bay ku leedahay now you can enter any command line to figure the ports and set up the switch configuration. okay, kelmadii baa inuu soo noqotay enable. markaad qorto wuxuu ku leeyahay config terminal baad qoraysaa. config terminal waa labadan erey, waa laba erey oo daba socon doono. markastoo aad doonayso switchkeena inaad maxaan ku dhahaa configuration ku samaysaa ama aad ku dhex shaqayso, waa inaad kelmadda enable qortaa, kabacdina aad ku xigisiisaa config terminal. marmarka qaar terminalka kuma daraysid oo intaa ay ugu dambayso kuma daraysid tida wixii xagga kasoo eegi kuma daraysid erminal kuma daraysid. marka waxaad qoraysaa un config t kaliya. qaybtaan halkaas aynu ka gudubno waa explanationkii switchka sida loo configureeyo. qaybteena ku xigta haddaynu galno waa sida fiilanka loo create gareeyo ayaynu geli doonaa. marka intayna qaybtaa gelin aynu haddaba tagno environment-yaan ku shaqaysanaynay oo ahaa Cisco packet tracer-keeni. waa kan halkaasaan kili gareeya, waa kan inoo furnay. haddii markaa adiga aanu kuu furnayn, sidaas baad tegaysaa, saas baad odhanaysaa waa ka aniga halkaas u yaalla. meeshii aad ku download garaystay waa inaad double click ku dhufataa. double click markaad ku dhufato waxa uu kuu soo saarayaa meel buu ku leeyahay geli iyo emailkaaga geli iyo maxaan ku dhaha passwordkaaga. markaas click baad siinaysaa, markaas buu kuu furayaa. marka aniga horaan sii furtay waa kaa si fiican bay la socotaa marmalay horaan. imikana waxaynu nimi markaa qaybteennii ama environment-geennii aynu ku shaqaynayno waa Cisco packet tracer. si fiican baa aragtaan oo hore u download garaysteen. file baan tegayaa hadda, waxaan doonayaa si save garaysto wixii aan samayn doono. file save as baan leeyahay.
way soo socdaa halka magac baan ku qoranayaa waxaan ku qoranayaa waxa weeye ccna.lab.4 ayaan iskaga qorayaa markaasi waxaan ku save garaysanayaa download halkaasaan click siinayaa kabacdi dibadna waxaan leeyahay save magacaasaan u baxsaday ccna.lab.4 okay labka meel haddaba halkan ayaan ku dhex shaqayn doonaa waxaanu sameynaynaa marka ugu horeysa computered baan soo qaadanaa bartayar baa aragtaan halka aroogaan ku dhufanayo halkaasaan ku dhuftay hal mar keliya waa kan computerkii baan soo qaatay halkaan soo dhigay waan dhigaa computerka halkaa dhigtay ka kalena mar labaad baan ku noqonaya waan soo qaadanaya inaad sidatana calaamadaasaad ku garanaysaa inaad sidato calaamadda yar ee maaragtay halkaa ka aragtaan computerkii kalena halkaasaan dhigtay kabacdi haddana halkaasaan ku noqonaya bartayar halkaa ka sishaysa ayaan ku dhuftay si aan usoo qaatay switchyadu waa kan switchkii halkaasaad ku dhufanaysaa marka haddana click baad halkaas siisay click markaad siisay switchkan aad ka dooranaysaa kaasaynu qaadanaynaa switchkaasaynu qaadan doonaa kaasaan ku dhuftay waan soo qaatay halkaasaan dhigtay halkaas biino olaya waan isku xidhaynaa haddana markaa halkaas baan haddana ku dhufanayaa bartaayari hurudaa ama jaallaha ama yalowga halkaasaan ku dhuftay markaan ku dhuftay haddana kuwan ay soo baxay kuwanaan ka dooranaya kaasaan doortay kaa aan dhibcaa lahayn isagu kaasaan ku dhuftay oo waa straight through cable kanaasaa ugu dhufanaya halkaasaan ku dhufanaya computerkayga baan dulimi waan ku dhuftay hal mar waxaan ka doortay fast internet 0 sida caadada inoo ahayd qaybtaasaan ku xidhayaa bartaasaan haddana ku dhuftay waxaan ka doortay 01 kan okay haddana mar labaad baan ku noqonayaa baalkii waan soo qaatay mar labaad waan igaa saaray kanaan ku dhuftay kaasaan ka doortay haddana waan dhaqaajiyey kan kalaan ku xidhay 02 kaasaan ku xidhay waa interfacekan dishiga oo barta computerka lagaga xidho isagoo muuqaala baan idin tusi doonaa halkaasaan ku dhuftay waan isku xidhay labadii IP addresyadeennii baan haddaba aan ku qoraya ka ugu horeeyaan tegayaa double click baan ku dhufanaya ku dhuftay uu soo kacaya desktop baan haddana kaga sii dhufanaya haddana waxaan kaga sii dhufanaya 106 bartaa ku qorantay waan ku dhufanaya IP address baan gelinaya 192.168.10.2 baan ku qoraya halkaasaan markuu kala gelinayaa taasna automatically wuu isu geliyey oo waa aragtaan numberkii isu geliyey isagana halkanna gateway baan ku qoraya 192.168.10.1 baan ku qortay okay markaan ku qortay waan iska jaraya halkaa yara casbad ku dhufanaya automatically ku save garaynaya okay kii kalena waan tegey markaan tegey halkaasaan kasii tegay desktop sidii caadi ahayd 100 baan kasii tegey waan gelinaya haddaba 192.168 waa IP addresskeena kale 20.2 baan isagana gashaday halkan automatically aan ugu dhufanaya marka bes hal mar kaliya kana waan ku dhufanaya waxaan ku qorayaa marka default gateway-gii 192.168.20.1 waka halkaas baan tegey sidaas baan u setup gareeyey kan waan iska xidhay haddaba configurationkii baan gelayaa si aan maxaa la dhahaa switchka u configurayo double click baan halka ku dhuftay CLI baad ka dooranaysaa sida caadada inoo ahayd waka su-aashii weydiiyey waka enter markaad ku dhufato su-aashaasii weydiiyey wuxuu ku yidhi would you like to enter the initial configuration dialog yes or no baan leeyahay end keliya taabanaysa bes haddana mar labaad aad ku celinaysaa enter baan markaa ku dhuftay mar labaad baan enter ku celiyey enable baad ku qoraysaa markaa enable waa aragtaan interna waad siinaysaa haddana config terminal baan ku qorayaa config terminal loo keliya config terminal oo space baan baxaya config markaan qoray space baan baxay waa aragtaan t baan qoray enter baan siiya haddana okay marka wuxuu ku leeyahay enter the configuration waa kaa halkaasaan ka bilaabina marka okay fiilaaniyadii baan haddaba kala garasanaynaa markaa qaybteennii labadii fiilaan in la yidhi waa la gargaaraysaa waa kun labadii fiilaan 10 iyo fiilaan 20 marka ugu horeysa waxaad taabanaysaa fiilaan baad halkaa taabanaysaa oo kusoo saaray fiilaan 10 baan leeyahay enter baan leeyahay markaa space baa u dhaxaysa fiilaan iyo 10 enter baad siinaysaa exit baad leedahay ex keliyaad qori kartaa waad ka baxay haddana fiilaankii kale inuu create garanaa fiilaan 20 isna fiilaan 20 baan ku qoray wuu create gareeyay exit baan isagana yidhi haye way la socota ma filaya qaybtan in tagina markaa haddana okay show lamp brief baan leenahay show fiilaan brief baan leenahay si aynu u ogaano waxaan raacaynaa waraaqdeen show fiilaan show
show waxaan leeyahay show VLAN brief waka okay show VLAN brief waa exit waa inaan nahno sorry exit waa inaan nahno marka ugu horeysa exit markaan nahno wuu inoo create garay labadii enable waa inaad markaa tiraahdo enable waa inaad tiraahdo enable markaa show VLAN brief show VLAN baynu qoraynaa brief hadduu inoo soo saaraya okay markuu inoo soo saaray inaga VLAN waxaynu create garanay 10 iyo 20 waa active buu kuri labadaasi waa 10 iyo 20 wax kale meesha kuma hayno waa 10 and 20 10 and 20 markaas labadaas buu inoo create gariyay okay enter waxaan leenahay hadaba config terminal baynu haddana leenahay config terminal baynu leenahay config terminal markaan leenahay waxaanu leenahay interface ayaan leenahay VLAN 10 yes warqadeena raacayna la socdo mar walba interface VLAN 10 wuu inoo soo dhigay inter baynu haddana leenahay oo kaa wuu inoo qoray IP address kiina gelina markaa IP address baad ku qoraysaa haddaad markaa qorto saa u taabato IP address markaad saa u qorato IP address ku waad gelisaa 192.168.10.1 baynu halkaa qoraynaa markii horena xagga kale waxaan gelinay .2 baynu xagga kale ka shamay subnet mask waa inaad raacaysaa space intaad baxdo subnet mask baad raacinaysaa .255.255.0 halkaasaynu ku gelinay markaa IP address enter baad siinaysaa markaa okay enter markaad siiso no shut down baad leedahay okay markay sidaa tahay waxaynu leenahay IP addresska no shut down baynu leenahay dabadna waad ka baxaysaa way la socotaa maan filaya way la socotaan marka waxaad leedahay no shut down baynu qoraynaa exit baynu leenahay haddana kii kaleynu gelaynaa qaybtii kale waxaynu leenahay imise VLAN baynu horta create garaysana waa inaynu ogaano halkan ku ogaano VLANka maxaynu create garaynay VLAN 10 oo kaliya maynu create garaynay mise laba VLAN baynu create garaynay laba VLAN baynu create garaynaa sax way waa aniga hoostayna ku tusay okay imkana waxaan leeyahay haddana interface VLAN 20 baan leeyahay enter baan leeyahay IP address baan qoraya IP addresski kale IP addresski waan iga qoray soo ma aragtaan 192 baan kana leeyahay .168 baan leeyahay .20.1 waxaan space baan hadda baxay 255 baan qoray .255 baan qoray .255 baan qoray waa subnet maskii baynu ku daraynaa meesha interbancy no shutdown baan leeyahay markaa no shutdown waxa weeye haddii kale kuma soo kacayo systemka aad doonaysa inaad kiciso no shutdown markaan ku qoro enter baan ku dhuftay exit baan haddana idhi labadii VLAN waynu soo kicinay labadii VLAN waynu karigelinay labadii interface-na waynu ku xidhnay marka kabacdi waxaan sameynaynaa qaybta xigtaynu tegayna markaa qaybta ku xigta okay interface-kii baynu haddana ku apply garaynayna imka assigned switch port to the VLAN baa lagu marka interaynu qoraynaa interface-ka F0 waa inaynu qorno waynu ku xidhno markaa switch boardkii saynu access garayno marka waxaan leenahay interface F01 imka marka waxaan leenahay interface F01 baynu leenahay enter baad leedahay dabeedna markaa maxaad ku asgaranaysaa switchboardkii baad leedahay switchboard baad qoraysaa switchboard more access baad qoraysaa access baad qoraysaa switchboard baad qoraysaa halkaa waxa weeye access baad qoraysaa enter baad ku dhufanaysaa haddana switchboard baad garanaysaa waxaad leedahay access baad haddana leedahay VLANka aynu ku xidhayn muxuu ahaa VLAN 10 baynu ku xidhayn kan enter baad siinaysaa oo kaa inoo soo kacay soo ma aragtaan okay
internetkii markaynu gelinay ka kalena okay markaa waxaynu leenahay exit baynu leenahay haddaba markaa exit baynu leenahay ka hore ka baxa haddana waxaynu qoraynaa interface baynu qoraynaa waa kii labaad baynu ku xidhaynaa interface fs02 baynu leenahay enter baad siinaysaa haddana enter baad ku dhufanaysaa haddana markaa waxaad leedahay switchboard mode baad leedahay access baad leedahay enter baad siinaysaa haddana switchboard baad leedahay access baad leedahay haddana fiilaankii muxuu ahaa fiilaan 20 oo aynu kan ku xidhaynay waxa uu inoo soo kacay exit baynu leenahay markay sidaa tahay halka aynu marayno waxa weeye waxaynu leenahay dabeedna exit baynu leenahay interface fiilaan tan baynu haddana ab ka dhigaynaa waxaynu leenahay interface fiilaan ayaynu leenahay tan no shutdown baynu leenahay haddana exit baynu leenahay haddana interface baynu gelinaa haddana oo kii kala ah interface fiilaan maxay 20 baynu leenahay haddana soo kicinaynaa no shutdown baynu leenahay exit baynu leenahay haddana okay marka fiilaanadii waynu kicinay waxaa inoo hadhay qaybteena dambe haddaba waxaa inoo hadhay inaynu u bedelo switchka layer 3 inaynu u bedelano okay markay sidaa tahay exit baan leeyahay wakaas wii configureeyey enable baan leeyahay enable ayaan mar kale leeyahay enable markaad ka dhigto waxaynu qoraynaa oo kale config terminal because waxaynu doonaynaa inuu bahalka aynu ka dhigno layer 3 ib baynu qoraynaa routing baynu qoraynaa okay waa successful halkaa iyadu inoo joogta maxay noogu xiga verify your work type show run or show ip interface br baa lagu yiri marka waxaynu qabanaynaa qaybtan aynu tegaynaa si fiican maasha allah baynu gashay waxaynu leenahay exit baynu leenahay marka waynu soo fikrayeen wixeenii enable baad oranaysaa markaa maadaama doonaysa inaad markasta enable baad ku shaqaynaysaa show baynu leenahay waxaynu leenahay show interface baynu leenahay waxaynu leenahay show ip interface ayaynu leenahay interface baynu leenahay brief waka soo ma aragtaan boortiyadii waa aragtaa ma fidaya okay yes manual app ku yiri labadii ip address waa labadii computer aynu doonayna isku xidhno 192.168.10.1 192.168.20.1 yes buu ku leeyahay manually app waynu kacsayn intan kale switchboard kan imka waa 24 kale waa down waa ka ku caday yes answered bal ku ana signed waxba lagu ma sign kareen laakiin kuwan baa la sign garay qofka assign garay oo maxay administratively waa administrator original okay haddana labadan ip address waynaga aragno waynu tijaabsanay waa manual baynu gelinay app administrator baa geliyay si fiican oo engineer marka iyagu administrative wax lagu tusaya yani qofkii maamulka baa geliyay kuwa kale waa lama sadgareyn baa lagu kuwana waa la sign garay markaynu doonayna haddaba inaynu saa waynu fahanay si fiican baynu aragnaa markaad doonayso haddaad geliso imika show run oo kale waa la mid wixii aan sameeyay dhan baad arki kartaa waka waad arkaysaa saasaad inter baad ku dhufanaysaa saasaad u jiidaysaa labadii aynu fiilaan 10 marka waa aragtaano in waxaynu boortiga computerku lahaa waxaynu ku assign gareynay labadii aan idin sheegay midna waa seliska ahaa waa fiilaan 10 oo midna waa seliskii kana waa fiilaan 20 oo waa qoladii kala accounting ahayd
marka halkaa waa fahanteen inta baad kusii dhufanaysaa waad sii raacaysaa ilaa xagga hoose labadaas baynu create garaysana marka labada account baynu create garaynay ee duray labada computer inay wada hadlaan xagga hoosena waxaynu ku qoranay IP addressyadu waa kuwan si fiican baa aragtaan qof waliba halkaa ka bogo waa aragtaan ka bacdi dabeedna waxaad sii taabanaysaa spaceka saad mar labaad hawshaad u bilaabato okay qaybteena baynu tegaynaa haddaba qaybta ugu dambaysa waxa weeye test connectivity between two computers labadii computer haddaba waynu configuraynay switchkii waynu configuraynay oo waa switchkan hadda ka shaqaynaynay oo waa taa waad aragtaan waynu create-gaynay wax walba waa dhan waynoo wada okay laakiin waynu test connectivity between computers labadii shirkadeennii labada computer hayda labada computer midna siliska midna accountka balanaga wada hadlayaan iyo kale waynu tijaabinaa okay halkan aynu tegi doonaa marka si aynu u gabagabayno hawsheennii oo dhan waayahay halkan markaynu taaganahay switchkeeni waa kan inaga soo laab ku noqo waa kan markaa switchkeeni okay qaybtan halkaa waa aragtaan marmalaya saasaan u saaraya waka waa aragtaan halkaa waad aragtaan si fiican baa aragtaan halkaa markaan saautu saaro waa aragtaan markaan saaro waxa weeye kan waa 192.168.20.2 ka kaleyn doonayna la hadisino markaan double click baynu ku dhufanaa kan halkaas aynu ku dhufanaa double click deedna run meesha la yidhaha baan ka dooranaynaa bas waxaynu ku qoraynaa marka aniga waa ii qorantay hadda waan qortay 192 baad halkaa ku dhex qoraysaa bingi baad ku qoraysaa horta kelmadda bingi baad ku qoraysaa aan idinku qoray marka hadda idinku soo bilaabaan idinka masaxo bingi 192.168.10.2 waa computerkeen doonayna la hadlo inter baad ku dhufanaysaa wow وكانوا شقي وحول replay from 192.168.10.2 oo byteskiisu 32 ay yihiin oo 10 keen ku soo baranay timekiisuna uu yahay 1 millisecond TTL oo toos buu la hadli karaa computerka kale waka maadaama aynu kan la hadlaysiinay ka kalena way intay karnaa markaas ka kalena double click baan ku sameeyay run baan ku dhuftay waxaan ku qorayaa isna IP addresskii kan leeyahay pinki baan leeyahay pinki waxa lagu bilaabay space bad baxaysa 192 baad qoraysaa .168.20.2 buu ahaa markaa kan kalena inter ku fogan wow wakaa la hadlay si fiican baynu labadii computer inoogu wada hadleen replay from 192.168.20.2 uu la hadlaya computerkiisi kale baa lagu yidhi because waxaa lagu yidhi package senti buu u diray fariin buu u diray waa number 4 markasta aragto waa okay weeye receiver number 4 receiver number 4 na wuu helay lost wax kale oo ma jiro waa 0 baa lagu yidhi everything is good marka casharkeenana maanta halkaas inoogu joogayaa saasay noogu laabayaa qaybtii ugu dambeysayna waxaa idin inaynu tijaabsano inta ka horeysa kulan labaad oo xiisa leh haddaad channelka ku cusubtahay mar labaad iyo mar saddexaad please subscribe like and share dhammaantiin waxaynu ku kulmi doonaa casharkeena Britole laakiin waxaan idinkula talinayaa mar walba haddaad doonayso kooraska inaad la socotaan inaad subscribe-so aad share garayso like iyo comment intaba ka bixiso fikirkaaga iyo arahdaada ka soo dhiibato kooraskan waa kooras hadduu kaliya qofku barto oo ku shaqaysanayo waan idin xasuusinayaa mar labaad iyo mar saddexaad wax kale kaaga baahna kooraska haddaad barato imtixaanka sidaad u diyaarinayso aniga ayaa toos idin tusaya maadaama oo aad barateen waxay imtixaanka qaabka aad u diyaarsanayso 1 day or 2 day baan idinku tusaya easy buu ku noqonayaa wadamada Soomaali ku qaateen anigu kooraskan English baan ku sameeyay alxamdulillah shahaadadiisina waan diyaariyay xoogaa muddan haystay imika waliba intuu kii hore oo aan qaatay isaga oo sanado hore ayaan haddana mid labaad dib u qaatay mar labaad cusboonaysiiyay because kooraskan waa new muddo badan oo sanado badanna laba bedelayo soo marka intaas aad ka faa'iideysanaysaa muddo badan baad ku shaqaysaa mar haddaad baratana waxaan ku adaa waxaan ku yaabi doonaa waddankan aan joogo North America anigu inta badan Mareykan iyo Canada waxa laga shaqeeyaa 8,000 ilaa 9,000 oo dollar kooraskooda kaliya qofku hadduu barto waxa alla wax laga weydiinay ma jiro marka dhammaantiin waan salaamayaa wa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh